قرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء المبين سيبزغ منه الضياء المبين فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين. dufcadii 28aad oo ah 44 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho dhameystay quraanka kariimka tafsiirkiisa iyo xadiista rasuulkeena suuban ayaa munaasabad balaaran lagu qabtay xarunta madrasada Maxamed Rasuulullah ee degmada Burtinle waxaana ka qayb galay maamulka degmada Burtinle culimo u diin ganacsato waalidiin iyo qaar kamid ah maamulayaasha iyo macallimiinta degmada Sheekh Maxamed Macalin Daahir maamulaha madrasada Maxamed Rasuulullah ee degmada Burtinle ayaa wareen ka warbixiyay ujeedka munaasabada iyo marxaladaha uu soo maray dugsiga الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يا الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكرة إن كان أي مكان كان قيمها بدن أي كم وقت روح ذات كيات أو قيمها بدن على سوق كوري كريم إن شاء الله تعالى وحن رباه inuu ku baraarujiyo Allah subhanahu wa ta'ala marka uu horeysa cabsidiisa qof kasta oo muslim ah ay Allah subhanahu wa ta'ala rumeeyay ee rasuulku uu soo diray rumeeyay waxa laga doonayaa inuu Ilaahay ka cabsado Rabbi subhanahu wa ta'ala ayada quraanka wuxuu ku leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa Allah subhanahu wa ta'ala ku rumeeyo Ilaahay ka cabsooda qofku waxa la doonayaa haduu Ilaahay ka cabsado wuxuu noqonayaa makhluuq Ilaahay ama takmidka ugu karaamada iyo sharafta badan buu noqonayaa hadii Ilaahay cabsidiisa laga helo hadii ay cabsidiisa laga waayana ximaarka waa ka liidanaya iyo baalka khaansiirka la yiraahdo mid ka hooseeyo oo ka darajo hooseeyo ayuu noqonayaa walidaas sidaa darteed cabsidu waa midaaru kullu sacaada liibaanta adduunyada iyo liibaanta aakhirada waxay ku jirtaa Ilaahay cabsidiisa qof kasto inaga ina kamid ah wuxuu hubaa inuu dhimanayo maalin in naxashka la saarayo sababtoo ah waxaynu naqaanaa hebel aynu naqaanay oo la qaaday aragnay hebel kale oo aynu naqaanay oo la qaadayna aragnay mowd wuxuu soo gurayaa xaafadaha dariskaaga ah iyo soo galgalayaa hadda mid buu la baxayaa maalinka ku xigana abu ku salaamaya wuxuu ku leeyahay haye maanta adaa ku qoran meydkaada ku qoran على نحشك ما أنت الوصاري دونا يوداهيا وعاد هاي مركز وقف جالسانيا ومحاد يجوز ديب ويدي أنت كور ودي أرجروب لا يمدي شكت مركز وداهيا هبل واتقاني سوما قادين هبلايو واتقاني سوما قادين ما دقيت بايو كادمن إمي سملاري كون علي إمي سند عسايا كون علي إمي سقضح كمودي صار رسولا كوسو دريما يراهن كواس الله سبحانه وتعالى عن كعب سنة ولا يلا قفكم مركا ودينته وعلى قلنا يا قل ومتره وعين لقصه صارنا ولو علينا ماشاس مركي سيدا العوش الله ما يستره لا ميت بين قناة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نوشة إما روضة من رياض الجنة إن نقطة بينها الجنة كم إذا نقطة وإما حفرة من حفر النار iyo inay noqoto xufraha naarta boqolaha naarta kamida qofka muuminka ee Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsooday ee adduunka markuu joogay xisaabiyay ee xasuusnaa cadaabku hortiisa yaalay saxaaba kamida ayaa waxa lagu yiri oo saxaari kala dhigi jiray nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam kayfa asbaht xaaritu sidee ku waa bariisatay markaas wuxuu yiri asbahtu mu'minan
رسولك إلهيو وهو بريستي أريقه مؤمنة ما الدليل على ذلك بالي محاو دليل إن أروا بريستي أريقه مؤمنة وحجر حارثة سندي با هورتا إذا كسورتا سندي با هورتا إذا إيمان إيسا dadkii adkhiyada ahaa cibaadurraxmaanka ahaa waxa lagu abaalmariyay baa ii muuqanaya waxaan moodaysaa inay hortaalo taaqadda ku soo xaadirsado isla markaasna naartii sheenu waxa silsana u raadsano haddii waxa weeye qofku la yiraahdo 1000 sanaad adduunka ku leedahay 1000 sana markay ku dhamaatana waa dhimanaysaa isagoo og inuu dhimanayo oo qof kasto inay ka mid inuu dhimanayo uu og yahay haddana inaynu shaqaysano inaynu magaranaysaa caadi u qosqoslo faraxsanaano waxa weeye waa qarinta leeyna ka qariyay dhimashada ee hadii la dhihi lahaa qof walaal maanta laga bilaabo waxa leedahay 1000 sano 1000 sano lagu tirinayaa ka tirso adu 1000 sano habeenkii ku dhamaatana waa dhimanaysaa hadii la dhihi lahaa qof waxa weeye qof wal kan 1000 sano qof dhamaysan lahayn kuma jiro ibri degdeg baaba ku dhici lahaa bas uu fakarayo oo isleeyahay maanta ka go'day haye bari baa ka go'day haye saacad baa ka go'day uu tirinayo uu ka labaynahay intuu meel fariisto saacad kasta oo ku soo madaahi imrigaagi bay jaraysaa cad bay goosanaysaa labay mid ku goosanaysaa adigoo khayr gacanta ku haya oo quraanka akhrisanaya oo masaajidka ku jira oo ilaahay baryaya oo tukanaya in imrigaaga saacadaas ay ka go'do kulay way ka go'aysaa saacadu saacadaas inay ka go'do oo imriga qayb kamid ay goosato adigoo dambi sameynaya cid xamanaya wax maala yaani ku mashquulsan filin iyo wax daran daawanaya saacadaas inay ka go'do labada un bay mid noqonaysa telefishin rabbaaniya lagu daaray waqulu qawlan sadida marka Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsataan hadalkiina hagaajiya baa leena leeyahay hadalkiina hagaajiyo hadalka aad ku hadlaysaan ha noqdo hadal fiican hadaad ilaahay ka cabsataan qawlkiina iyo ficilkiina aad ka dhigtaan mid wanaagsan maxaa leedihiin yuslih lakum a'maalakum wa yaghfir lakum dunuubakum amalkiina ilaahay aqbalaya dambigiina Allah subhanahu wa ta'ala uu dhaafaya waman yudii Allah wa rasuul ilaahay qofka adeeca rasuulkiisana adeeca buu nabiga alayhi salatu Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay faqad faaza fawzan adima qofkaasi liibaan weyn buu liibaani walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala ayanu ku mahadinaynaa sida xafladu ay ku xusan tahay waa ardada yararka oo waxa oo quraanka dhameeyay Allah subhanahu wa ta'ala waxa uga baryaynaa inuu quraanka inuu qalbigooda ku sugo oo ka yeelo kuwa quraanka ku dhagan oo gacanta miigta ku haysta waalidiintii waqtiga ku soo bixisay fadhiyo maanta ardadaas way qalin jabiyeen la yiri oo quraanka waa u dhamaaday leeyahay maanta ayaa quraanka u bilowda sababtoo awal waxay la legdamayeen hikaada barashadeedii bay la legdamayeen laakiin maanta way baran karaan haday damcana quraanka xifdiyaan bay xifdin karaan haday doonaan inay hadii tafsiirkiisa bartaan bay baran karaan haday doonaan inay xadiistii nabawiga ahayd bartaan bay baran karaan haday doonaan ahkaamtii inay bartaan bay baran karaan arabiyadii bay baran karaan maanta waxa toosh baa maanta u ifay labay mid noqonaysaa tooshka inuu meeshiisa ku damo in la sii wado tooshkaas labada bay mid noqonaysaa haday wax barashada meesheedii quraanka sii wadaan ku naqtiimaan tafsiirkiisa sii wadaan macnaheedu quraanka inay bartaan ay sii wadaan isku quraanka waa quraanki ilaahay marnaba markasto aad celcelisid oo quraanka lagu soo celiyo wuxuu waxa quraanka u siyaadaya qurux iyo macaan baa u siyaadaya markasto aayada qiradeeda aad ku celisid waxa kaaga siyaadaya nuur iyo taathiir bay qalbigaaga ku sameynaysaa hadaad akhrisid ee ku laabatid waxaad moodaysaa awaar markii hore oo hore aad akhrinaysa aadan ka dareemayn ayaa jirkaagu dareemaya waa ku celisa mar labaad awaar labaad buu sii dareemaya jirkaagi waa ku celisa mar saddexaad iftiin labaad baa sii dareemay toosh baa sii ifaya ilaa waxa weeyse ugu celcelinaysa qalbigaagi uu noqdo iftiin basiirada ay ku dilaacdo walaalayaal insha Allah ta'ala marka waxaan ku boorinayaa ardayda kula dardaarmaya arday maanta aad wax baran kartaan gabdho iyo wiilal inta quraanka hadda u dhamaaday maanta idin bilaabatay inaad wax barataan maanta idin fududahay quraanka xifdintiisi maanta idin fududahay quraanka laftigiisa macnihiisa inaad barataan hadda laftiga wax ka barateen maanta idin fududahay xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam inaad barataan maanta idin fududahay maanta bilowdeen baa la dhihi karaa maanta dhamaysan lama dhihi karo
sababtoo ah markii hore waxaad ku jidheen barasho iyo kicin baad ku jirteen laakiin maanta kicin cidna ugama baahnidin waad xiftin kartaan waad cayrinaysaan awal macalinkaad waa tagaysaan halka macallin ii sheeg meeshan see loogu dhawaaqaya macalinkaad kula laabanaysa meeshii kugu adkaata laakiin hadda waad taqaanaa meeshii kugu adkaata sidii aad ugu dhawaaqi lahayd waad garanaysaa waxaa laga doonaya inaad xiftisid marka ayaa xiftisid baa laga doonaya inaad ku faantaan quraanka akhriskiisa inaad ku faantaan day anigu hadda macallin baan ahay wala muddo ilaa 17 sano ilaa 18 sano ayaa quraan dhigay ilmuhu markuu quraanka dhameeyo waxa u soo baxaysa khalaas waxbarasho danba waa ku dhamaatay quraanka ka tag baa u soo baxda run ahaantii laba meelahaasayna u bataan inay ciyaal meelaha iska noqdaan meelaha iska wareegaan bay qurux u qaataan ay ku faanaan kuwa waxa la rabaa soo xareysaan kuwii tagay oo quraanka iska daayay raggiina meesha fadhiya inaad sabab ugu noqotaan inay soo xaroodaan mar labaad quraankii bilaabaan ayaa la idinka doonaya taasaan idin kula dardaarmaya yay idinka idin jiidin oo idin dhihin aniga quraankii waan iska daayay maxaa mar hadaa dhamayso dugsiga ka aadaysa waxaad ku tiraahdaa markuu hadalka kugu yiraahdo anigu waxaan doonayaa inaan quraanka laftigiisa xifdiyaan doonayaa waxaan doonayaa ilaahay markaan hortago iqra inuu yiraahdaan doonayaa akhri waratil oo tartiibi warqa kor jaranjaraha jannada iyo salaamada jannada kor fa inna manzilatuka manzilada aaleedahay degaysa jannada ka degaysid aakhiru aayatin taqra'uha way aayada aad akhriso aayada u dambaysa hadaad xifdisan tahay ilaa iyo suuratu ahqaaf hadaad xifdisanto waa 5 juz aad bilowdid ahqaaf aad soo bilowdid ilaa bi rabbinaas aayad kasto aad akhrisid darajaad koraysa kor baxaysa ilaa aad bi rabbinaas ka gaadid ka waran hadaad ilaa suuratul baqara ilaa bi rabbinaas xifdisan tahay ka waran intaad soo bilowdid aad wadid aayad kasto aad akhrisidna aad jaranjar guri dabaq aad ka sii gudbaysid oo dabaq kale u sii gudbaysid ka waran waxaad ku tiraahdaa marka anigu waxaan doonayaa inaan xifdiyo lafdan wa macnan inaan xifdiyaan doonayaa ilaahay markaan hortagana Allah subhanahu wa ta'ala uu igu siiyo darajada u sareysa jannada ilaahay inuu siiyaan doonayaa inuu yiraahdo iqra akhri waratil tartiibi warqa kor salaamada jannada kor fa inna manzilatuka manzilada jannada ku leedahay aakhiru manzilatin aakhiru aayatin taqra'uha saasan doonayaa dheh dabaaliyo waxaan kugu la talinayaa inaad soo laabatay mar rabad isugu laabto quraankii bilowd waan kula talinayaa sidaa dheh yuusan kugu dhiiri gelinin kaala kubada ila ciyaar yuusan kugu dhiiri gelinin kaala filinka ila fiirso markuu ku yaa kaala filinka ila fiirso kaala tafsiirka ila soo dhageysa dheh markuu yiraahdo kaala hadii ilaahay kubada ila ciyaar kaala xadiiska nabiga ila soo dhageysa dheh ya baquraan safha quraan soo xifdinaya kaala masaajid xogaa la soo itikaaf dheh ardada sidaas aan kuleeyahay ku boorinaya waalidiinta waxaan leeyahay markii waxa weeye aad dugsiga macalinka u keenayseen ee yararka ahaayeen dansanaayeen subax walba soo jiidayseen maanta way ifeen baan idin leeyahay laambad baa maanta uu tahay ka dimin meesha ka sii wadaan idin leeyahay ku dadaala maanta ay wax baran karaan maanta ay ummadda anfici karaan maanta ay macalinkooda caawin karaan maanta idinka idin caawin karaan laba ay noqonaysaa inaad shanta kala baxdaan ay magaaladooda galaan iyo inaad gacan ku siisaan macalinka sidoo mar labaad quraanka ugu celila tafsiirkiisana uu bari lahaa markuu magaranaysa quraanka xifdisiyo tafsiirkiisana uu bari lahaa ahadiista nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu bari lahaa inaad garab ku siisaan waan arkay aabba madax u salaaxay wiilkiisii oo leh aabbe quraanka dhame mar hadaa quraanka dhameysid saartiyel markaa laakiin quraanka dhame wiilkii muxuu ka fakarayaa quraanka uu ceyrinaya rag buu ceyrinaya wuxuu doonayaa mar inuu ka dhamaado maalinka quraanka uu dhameeyay wuxuu aabay soo imaadeen Soomaaliya balamin quraanka dhameeyay soo imaadeen hada waan dhameeyay bas maxay iga rabtaa orod marka magaalada galbiir maalinka dib wuxuu ka hor imaanaya asagoo halka timihu joogan intaan xiran tahay intaan xiran meelahan daliga yar kule ayuu ka hor yimid maxaa laga doonayaa inaad tirahdid aabba quraanka dhameey ku celi quraanka lama quraanku ma dhamaan quraanka miyaa kitaab ka dhamaaday may waa ku yaala may ku celi ya firi wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula quraanka celcelintiisu qurux bay ku siyaadinaysaa yeeftiin maana hooyooyinka iyo aabayaashu waxa la rabaa inay gacanta ku qabtaan inay garab ku siiyaan macalinka iyo macallimiinta inay garab ku siiyaan inay xifdiyaan quraanka ay ku celiyaan markay quraanka xifdiyaanna macallin tafsiirkiina waa akhri macallin saacada xadiiska nabiga waa akhri macallin saacada ahkaamti waa akhri macallin saacada waxa akhrisaa fi adilada arabiyada waa akhri
inay taa gacan ku siiyaan baa la doonayaa. marka maxaa soo baxaya? waxaa soo baxaya wiil macallima soo baxaya, waxaa soo baxaya wiil sheekha soo baxaya, gabar sheekhada soo baxaysa. ama haddii meesha hadda maanta ay uga tagaan way isla damayaan. tooshka walaalayaal waxaan idin lahaa tooshka hadaminina hadda ifay. toosh baa ifay, qurux baa muuqanaysa, ragga iftiin ka muuqanaya u jeedaan, gabdhaha iftiinkii quruxda ka muuqanaysa waa u jeedaan. quraankii fayskii koowaad baa u dhamaaday, fayska labaad iyo fayska saddexaad ku celiya, fayska afraadna tafsiirka ha noqdo. inta ayaan dhihi lahaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. alxamdulilah ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني أولا إلهي بمهاد اسكال سبحانه وتعالى مركا أقوه الرئيسة اللي إنا كسو كل مكان كان شرفت له لأنه وحوي أمده ميربضا أي كل مان بعد جد وحان مركا لبعض مهدو علينا إياه واردينتي كسر شقي حفلة دان قيمها بضن لأنه وحوي هديسن أيقو نوضي ياريين sidaan noogu qurxiyeen ma aysan dhacdeen. ayagana waxaan leeyahay khayrkaas aad u dadaasheen, waqtiga asiiseen, ilaahay xasanada ka siiyo. waxaan salaan u celinayaa aad iyo aad u ballaaran iyo mahadeeda ka soo qaybgalayaasha ay ugu horeeyaan culimo diinka, maamulayaasha iskuulada, waaridiinta, ardada xafladda jabinaysa, ardada kale oo soo camiraysa, sidoo kale waaridiinta dhammaantiin aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. walaalayaal sida ogtihiin xafladan waxay ku saabsan tahay qalin jabinta ardayda quraanka xifdinta quraanka dhameysatay oo aysan ahayn quraanka kaliya ay maceeda tahay sidii macallin Abdul Qaadir sheegay tafsiirka quraanka ah, ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam, siirada iyo waxyaabaha la midka ah. dafcadan galabta qalin jabinaysa waa dafcadii 29 way dafcadan waxa way maraaxil badan ayaa madrasada soo madhay. taariikhiyan wax badan waa ka hadalnay. madrasadan waxaan furnay 2001dii 2001dii ilaa haddeer madrasada way shaqeynaysay, si fiican ayay u shaqeynaysay. ardooyin badan oo gabdho iyo wiilal ayaa wax ka bartay. siday u badan yihiin qaar waa macallimiin, qaar waxa way waa dhaqaatiir, qaar waxa way qaarba meeshii ilaahay uga fududeeyo shaqadooda ayay waxa way ka shaqeysanayaan ayagoo aqoon loo aad iyo aad u dhismay. marka xilli kasta waxaan isku taxallujinaa annagu oo aan waqtigeega siinaa oo aan jaaniska siinaa siday waxa way miro u soo bixi lahaayeen. laana waxa weeye miisaal yar haddaan bixiyo xilliga la galo waa 12 subaxnimo, waxa weeye xilliga lagu gaaro ugu dambeysana waa 8 habeenimo. yaani markii loo fiiriyo waxa la soo oran karaa waa qaab kulleej. fahanka yagu intaas iyo dadaalku waxa weeye maadaama aanu aragnay sida suuqyadu ay yihiin iyo maraaxishoodu si aysan ilmuhu waxbarashadii aysan mashquul kale uga helin oo ay waxa weeye xarafkooda u ilaaliyaan. ikhwaani marka aniga oo aan ku dheeraanayn sidii xiriiriyuhu yiri haddii dadaalka iyo juhdiga macallimiintu ay sameynayaan aysan helin garabkii labaad oo ah waaridka, dadaalka macallinku sameeyo waxa way wax soconaya ma aha, wax u shaqeynaya oo soconaya ma aha. laana sida ogtiinba maanta caruurteena ubadkeeni waxa aad iyo aad ugu yimid cadow tiro badan oo doonaya ilmahaaga yarka adigu adashay inuu ka qaado. qaadidu ma xaditaan iyo wax kale ma waa wax ka sii xun oo ah inuu ilmahaaga suuqa la geliyo, in ilmahaaga mooryaan noqdo, inuu waxa way dadka dhaco, inuu sida la sheegay hadda inuu ku soo badatay gabar maskiin oo xaafad u joogta oo bac madaxa u geliyo oo hadda waxa way iyadoo ma artay dhibaataysan meel laga helo. dibtaas oo dhan waxa ay ka imaanayso waxa way ama ay ka timid sidaynu ognahay waxa weeye waa waxaan la yiraahdo dhalooyinka iyo moobeelada waaridiintu u gadayaan. laana ilmihi waxa weeye suuqii buu galayaa, dhalu daawanaya, dhaladan wuxuu ka daawanayaa inta allaale inta xun oo ilaahay looga fogaado. diritaan buu ka daawanayaa sahlan oo dadka la laynayo, sino iyo fusqi buu ka daawanayaa, xumaan oo dhan buu ka daawanayaa. cunugii waxaan yarka markuu daawado qalbigiisa wuu kooban yahay tana ka tabadanaysa, wuxuu isleeyahay waxaan waa wax sahlanba. laana waxa sameynaya filinkan ba asaga ka waaweyn aabiyaashi ka waaweyn
oo gaalada ah oo dadkeena islaamka ah ay sahleen markaas waxa arkaysaa cunugii oo awalan ay bedelantahay xaaladiisa islaamnimo tiimihii buu jarayaa labiskii islaamnimadu waxa weeye bedelayaa cunuga waxa weeye si kale ayuu u dhaqmayaa meeshaas sugayay ama macallimiintu ay sugayeen arday wanaagsan oo diintii ka muuqato cunugii waxa ku dhacay isbedel weyn isbedelkaasna waxa keenaya waxa weeye maraaxishaas weeye ikhwaana waxaanu ku codsanaynaa waalidiinta ilmihii waalidka aan gacanta ku dhigin oo ilmihiisa ka warqabin yuusan ilmaha isku lugoyn waxbarashada haday tahay maadi iyo haday tahay diin faraha ka day ha ka qaado laana waxa weeye ilmihii markuu diintii jiro markuu iskuulkii jiro waa wax la garan karo labada waqti wixii u dhaxeeya ilmaha qofka waalidka waa inuu ku xisaabtamo xagee jira ilmahan midaal yar haddaan bixiyo waxa weeye hameenkii markii halka ay 8 ka baxaan suuqa hadaa u baxdid mid yar oo qaybta xadaanada dhiganayo suuqa ordaya arkaysa aad baa waxa weeye adiga macanka u qeyroonaysa waad naxaysa waxaas leedahay qofkii waalidka ilmahan dhalay meeyi ya qofkii waalidka ilmahan dhalay xagee ku sugan yahay maba la tabayaba ilmahaas bas suuqaas xarabku halkan ka qaatay dhaladii caawa kala baxday waxa dhacday magaaladeena buurtila sanad dhaweyd cunug yara waxa laga soo fasaxay baa xilliga iskuulka barakteemka oo birrifta la siiyo dhalashadan buu arkay dhalooyinkan aan sheegayo waagi hore xilligii madaarista aan bilownay lama heli jirin aflaantan hal filin baa buurtila dhan ka dhici jiray oo habeenkii ciyaalka u dhuuman jiray habeenkii baa la gali jiray hadda 24 saac waa furay mana la xiraba habeen iyo maalin waa dhacayna tibay cunugii jaaniski madrasada jaaniski iskuulka dhaladu siinaya cunugan waxa la buugtiibu wataa dhaladii soo istaago waa daawad cabaar markuu saa ugu jeeday asaga wax yar bay la tahay waayo qalbigiisa motor weyn baa ku xiran ka weyn baa ku xiran buu waxa wuxuu maqlay baa adinkii duhur soo booy wal ma yara waa iska booy nin waalid meesha taagna waxa wuxuu yiri adeer maxaa kugu dhacay wuxuu yiri adeerow iskuulkii baan aaday saaka bareegan islahaad ku noqotid hadda adinkii ugu dhacay dhalada intaan daawanay marka maxaa ka booysa ma 10kiina waa ka booya aabana macallimiinta bi wadaniya aaba idilaya ilaahay baan kugu dhaarshiday ilmaha waxa ka xoog badan waa dhaladan weey si kastoo marka macallin u caabiyo oo waxa weeye hadii ay kuriyo uga hortago waxa weeye wax laga maar helaya maaha waxay ku suurto gali ka dhaakali ah waalidka macallimiinta iyo maamulka iska kaashada waxa aflaanta oo suuqii ilmaheenni baabiyay ikhwaani inta ayaan ku soo gaabinaya inta aan khaday ilaahay naga dhaafo salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aqadsiyo calan maxamed xogta uu naga siiyay ardada iyo dugsiga sida awada dareemi ka dhan rag badan oo maanta waxa weeye ama professor ah ama magaalada ama gobolada ka shaqeeya ragna halkan joogan in qaybna inaga maqan tahay baa dugsigan ka qalin jabiyay oo ka baxay marka macalinka ajar Allah ka siiyo ajarkii ilaahay baa gudi kara anagu ma gudi karo waxaan codsanaynaa in waqtiga la soo koobo waa galab sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waalidiinta ardayda bahda saxaafada culimada macallimiinta cid kastoo ka soo qayb gashay waxaan leenahay waa ku mahadsantiin waqtigiina qaaliga ah waxaan ku soo dhaweynayaa macallin Ismaaciil oo afka macallimiinta dugsiga ku hadli doona Sheekh Ismaaciil fali tafadal in aan soo gaabiyo horta fadaaisha quraanka waa laga hadlay oo si fiican baa loogu hadlay xogaa markuu waxaan ka hadlayaa tarbiyada sida ogteen ikhwatal kiram nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alayhi ma min mawludin yuladu ala alfitra mawlud walba dhalanaya oo wad walba dhalanaya wuxuu ku dhalanaya fitrada diin ayuu ku dhalanaya fa abwaahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani labadii waalid bana nasaara ka dhiga yahuudna ka dhiga majuusna ka dhiga inta badan waxa weey waxa la leeyahay war cunugii waa iga fasahaaday war ma fasahaadina adaa fasahaadiye liana cunugii markii hore hadaad tarbiyeysid wuu ku wanaagsanaanaya لأن الله سبحانه وتعالى وحير إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وحوناك أسميس إلهي ضيع ما يكوها جاتشينية لكن مر عرورتي اللي ضيعيبه وحال ليه هي عنقي بايقة في السهادي هذا عنقا وناك بو كل شيء ما من مولود يولد على الفطرة إخوة الكرام حديث معقل ابن يسار بخاري مسلم باصوصر لفظي لكن بخاري باسكاله وأها
maa min cabdin istarcahu raciya addoon walboo la raaciya mas-uuliyad loo dhiiba mas-uuliyaddaas uusan siday tahay uusan ugu soo bixin falam yajid raa'ixata aljanna carfin maayo jannada raa'ixa gelidda iska daa carfin maayo xataa marka waa arrin aad u adag weeye marka ikhwatal karaam awlaadda waxaan loo baahan yahay in xaafadda lagu wanaajiyo guriga lianna shaacirkii wuxuu yidhi al-ummu madrasatun idaa actadahaa shacban tayiba alatraaqi hooyadu waxaa weeye hadday wanaagsanaato waxay soo saaraysaa uwad fiican bay soo saaraysaa lianna imaamu shaafici axmed ibnu xambali kulli hooyooyin baa dhalay maantana waxaa weeye a'immada ugu waaweyn bay ka mid imaamu shaafici markii taariikhdii si fiican aad u gashaan waxaa intaas heerkaas soo gaartay waa hooyadii marka ikhwatal karaam dadaal baa loo baahan yahay ilaahayn garab buu kugu siinayaa macalinka awlaadda intay la joogaan oo waqti yar laakiin waqti badan waxay la joogaan xaafadda الله سبحانه وتعالى وحيري يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم خيانها سمين أمانة الله سبحانه وتعالى كسي ها خيانة محي وحاوي كسمين كذا أولادي أدى يعدد عنك القرآن بودمين يا السجون تسعة وسنجارين بإسكول العررية wixii saxda maalinta qiyaamo lagu weydiin lahaa waa quraanka diinta ayaa lagu weydiinaa ma bartaa lagu leeyahay wixii markaa la isweydiin lahaana waa laga tag waxaan la isweydiin lahaa waxa weeye waa loo go'ay marka ikhwatal karaam waxa loo baahan yahay awlaadda diinta in loogu dadaalo sida ogtihiin magaalooyin badan baa marmaray hada East Africa South Africa oo kal markaska albayaan iyo meelo badan oo Djibouti macadkan Sacuudiya iyo koonfur yaanaaba ka soo jeeda ka imid ma arag meel ka dadaal badan dugsiga ma arag dadaalka ka socda lianna aroorti baa la ilhaynaya waxa la haynayaa galabkii bacdul maghrib baa la soo celinaya cishii halkaana lagu tukanaya 2 saac meelahaas halka laga tagay cishii markii laga baxo kadib halka laga dareerinaya marka dadaal baa halka ka socda oo kutubtii baa socota oo qaybtii xadaanadii baa u socda iyagana oo quraankii ardayda dhameysay baa haddana waxa loo furayaa barnaamij waxa loo furayaa kutubtii ah in ka soo waalidiin qaybna aysan ka faa'iideysan markuu quraanka dhameeyo halkaas uu ka baxaya waalidiin way ka faa'iideystaano hadii caruurtooda dib bay dugsiga ugu soo celiyaan say kutubtii wixii ay u bartaan marka ikhwatal karaam aynu dadaalno insha Allah waxaana qaldana waxa way garaale hada xoogaa waa dabeecadeen markaan hadlayo in meelo kale aan juqjuqeeyo marka waa idiin salaamay insha Allah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh Ismaaciil waa mahadsan yahay xogta uu nasiyay ilaahay ajra ka siiyo marakana waxa uu yeerayaa dadku hurdaana qayb dad hurdada ka kiciya waxa uu yeerayaa kooxda akhrinaysa tuhfadul afdal soo dhawaada رحمة الغفور دوما سليمان والجمسور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تهوى بعد هذا النظر بالمريد في النون والتوحيد والمدور استمتعوا بتحفة الأنفال عشق كاد التمال أرجو بأن يرفع الضراب والأجر والغبور والسواء في نوني وانت توني التوين ها احتمل فقلت وين إذ هول الإدار قبل التعرف حق حتى الرتب التعرف مع عين الغال مع عين الغال أيوة هو التويتين محمد عبد الكريم ديري فليتفضل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أولا وحن سلام يا واردينتا أرضيدا قيبه إذا كلا دوان marti sharafta ka soo qayb gashay waxa maanta farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo madrasadii aan ka dhameeyay quraanka oo ka soo maanta ka qalin jabiyeen arday gaaraysa 44 qof waa ii farxad inaan maanta aan ka soo qayb galo madrasadan soo macalinkeena inoo sheegay macallin maxamed waxay soo madhay qaybo aad u badan anigu heer waxaan soo dhigan jiray ay madrasadaan ahayd hal mudul kaliya mudul bas waxa farxad weyn iyo ay maqlaysan ma maleynaya waxa farxad weyn iyo ina maanta aan arko dugsigii oo u eg qasri ma sha Allah afartiisa gees arkaysan waa xiran tahay heer waxaan gaari jirnay ay markuu roobku inoo soo dalo roob baa soo socday hal kala carro la oran jiray alxamdulillah maanta roobka haduu daayo haduusan daayin kulli waa isku mid anagu jaaniskan oo kalamaan haysano khamiisaan saa loo soo wada gashanayo tiifiyada caalamiga loo soo yeerayo adduunweynaha dhan la ka daawan jiray albari baa dhigan jirnay waana la ku quraan akhrin jiray bas intaasaan mari jirnay waxa farxad weyn yaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baba inuu dugsigeena uu yahay dugsiga koowaad oo markii la fiirinayo dugsiyada degmada Buurtile inuu yahay dugsiyada koowaad anagu macallimiin baan nahay waxaan dhignaa iskoolo runtii markaan fiirino ardooyinka galaasada noo fadhiya madrasatu maxamed rasuulullah ardadeeda way nooga duwan tahay ardayada kale waayo haday noqoto dhaga hingaada quraan akhriskii tawjiidkii markii xadiithtii kulli waa dugsi aad iyo aad u dhisan alxamdulillah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa macalinkeena macallin maxamed wuxuu mudan yahay macallin maxamed isa u nahay degmada Buurtile khaasatan degmada Iisha xaafadayadan inaan taalo u dhisno naga mudan yahay macallinku macallin ajar iyo xasanaad la soo koobi kana Allah subhanahu wa ta'ala ha kaasiyo kulay abaalkaaga ma gudi karno السلام عليكم تسكو جبين كريم أو كم إذا أرضي كبحي تكسيرة سيدو شيخ مع محمد أبال وين أيو نقول هي كل ما جودي كرر لكن إلهي أيه نوي ديننا إنه شنا يو خير إلهي وبدله وحاوي ريا عبد الرحمن بيحي ووالد سيدو كل وماملها تكسيرة هو مستقبل كسر عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد معمولها أما جود مدرسة محمد رسول الله معلمين تا أرضيدا قروح بدن هل كان فرددا والدين تا كسوق بقلياش حفلة دمان تود وحنك سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب هذا البدن قلبت هل كان أنا هاي تانية إلا سوهم بلي يميالو waxaan si weyn ugu hambaliyeynayaa anigoo ku hadlaya laba af midkood waa mid waalidnimo midka labaadna waa midka maamulo waxaan aad ugu hambaliyeynayaa galabta ardayda gabdhaha iyo wiilasha ee dhameeyay kalaamu rabbul caalamiin in badan baan waxaan tagnaa xaflado kale oo sidaan oo kale aanu agaasinayn oo laga yaabo waxyaalo in laga sheekeynayo aadna ku aragtay dadka ugu waaweyn ama bulshada dhexdeeda qiimo kale inay aad u qadarinayaan waxa ka qiimo badan mid galabta aan joogno oo arday dhameysatay kalaamkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu bogaadinayo oo lagu sharfayo waxa ay dhameeyeen baana qiimaha iska leh intaas waxaan leeyahay waa taaniyad qaybta labaad waxaan ku dardaarmayaa anigoo afka waalidiinta iyo tan maamulba ku hadlaya quraanka Ilaahay marka la dhameeyo haddii halka looga haro oo qofku quraankii markuu horujeed u dhameeyo uu ka tago qof aan dhigan oo kale la mid yahay dadka maanta biotooyinka fadhiya haddii aayad quraan la akhriyo qof walba kula akhrinaya laakiin ma jidho qof uu yar yahay intuu quraanka markuu dhameeyo ku laabto kitaabta Ilaahay akhristo hadhowdu qofkaasi diin iyo maadi labadaba wuxuu noqonayaa qof qiimo leh marka ardada waxaan leeyahay iyo waalidiintaba hal lagu dhabar adaygo ardadu inay mar labaad ku noqdaan quraanka inay masaajidka
noqdaan dad cilmiga u fadhiya xaqiiqatan madrasadan markaan wax yar dib ugu laabto haddaa timaado cishaha marka la tukanayo sida hadda ay u camiranto oo kale ay u camiranta subaxii haddaa timaado waa sidaas oo kale juhdiga intaa leeg macallinka geliyey iyo macallimiinta kaloo la shaqaynaysa waxayna ka mudan yihiin dhammaanteen inaynu ku sharafno ku karaamayno iyaga markaas waxaa sharaf u ah waa kalaamka wanaagsan iyo in loo og yahay waxa ay tareen bulshada taasna waxaan leeyahay intaas aynu wada dadaalno insha Allah waxa lagu khayr helayaa dhammaanteen waa diinta Ilaahay culimadii hore ka hadashay waxaan rabaa hal kelmad oo waalidiinta iyada ku saabsan hadda aan kamid ahay inaan iraahdo maanta bulshada waa la isku haystaa dadkii wax la barayay ama madrasada iskuulaha loo furo ama dugsi quraan ka bixiya waa loo soo shaqo tagay weegii dhawaytaan boosaas joogay haddaan ka sheekeeyo waxaan arkay waad yaabi lahaydeen in mar dhow burtino lagu arkana wayba dhici kadhaa meel boosaas waxaan ka soo disay surun oo la maro waxaan ku arkay dhalinyaro dhowr ah oo qaylinaysa waa qaylida waalida u ego kala hadda qaylada caadi ma moobilay gacanta ku haystaan way qaylinayaan waliba waa waray iyo wax la mid ah kelmada aan munaasab ahayn waan dul istaago waan ku leexday abaar baan dul taagnaa dhalinyaradaasi wax game la yiraahday ciyaarayaan waa waray buu leeyahay waa waray dhalada xawti fiidin dhalinyarada intaas oo wada xiiran marka way saaq fadhiyaan mid kasta waan weydiiyay waxaan ku ruuxan maxay inta abaar iskala fariistayo haday garanayaan in la mid oo waxaan iska dhigay waxaan maxay yihiin waxa la hadba sida aad u qaylisay baa game-kaaga u soconaya malay maqlaya hadaad waa waray si tiraahdo bahal korb u kacaya oo waxa irday qof waalan miyaan ma miyir qabin miirka aawe may waxay dhaheen waa bahal hor loo hada yimid ifa waxa dhici ka dhahdeen noolaana burtileena ku aragtaan iyadoo waa waray wiilasheen ku hayaan ya waxa boosaas yaala burtile maxay u jiraa waxaynu u baahanahay ilmaha maskaxiyan in laga dhiso dil iyo ma ahan cayrin waa in qofka la baraa diinta Ilaahay inuu barto inuu xishoodo in waxaad u korinaysay iyo waxaad u barbaarinaysa ilmaha inaad fahamsiiso maanta ilmihii waa la cayrinaya rag iyo dumar badad cayrsanaya ilmaha ku imaanaya ilmihiina waa la qaban laayay waxaan dhihi lahaa marka anigu laba qodob aan ku soo gabagabeeyo oo ilmaha ku saabsan midooda waxay tahay war awlaadaha loo duceeyo marka hore la dhalayo marka dambaba ducadu wax weyn bay tadhaa culimada ka hadashay quraanka anbiyada Ilaahay markay Ilaahay awlaada ka bariyay waxay lahaayeen rabbi awlaad wanaagsan isii rabbi ilmo wanaagsan isii maanta si ka soo la yeelo inaga dadaalana ku yarayn ayaa ilmihii waxaad moodaa gacanteena inay ka sii baxayaan waxa keenaya waxa weeye wuxuu arkayaa ilmuhu mid leeg oo dayacan wuxuu arkayaa mid leeg oo qaylinaya wuxuu arkayaa mid leeg habeen dhawtaan ka yimi safar gaarinta naga jabay halkaan meel dhalo lagu daawado waxaan ugu yimi ilmo aan sirin 6 mise 7 jira oo kursi ku hurda kursigu sida u saaraya loo hantu saartay waa quurinaya ari oday kala aanu ahayn waa toosinay markaan toosinay buu cararo orday waxa laga yaabaa qof baa dhalay ilmaha 6 ama 7 jire 8 saac oo habeenimo dhow bay ahayd kursiga ku hurda marka insha Allah aynu dadaalna waan ku dheeraaday ardadana waxaan leeyahay si gaar ah macallinkiini iyo macallimiintii kale waxay idin baraysay waxay idin barayeen waxay ahayd laba qodob naftiina in anfacdaan marka hore marka labaadna macallinkiini waalidkiina anfacdaan ardada waxay yiraahdaan markay quraanka dhameeyaan hooyo aaba waa dhameeyay ku laaban may wuxuu diidayaa inuu macallinka laba arday quraanka ugu yeeriyo ama 3 arday subaxii intaas uu ka cararaya laba maslaxadood baa ugu jidha marna quraankiibu ku sii baranaya marka labaadna wuxuu noqonayaa macallinkiisa mid kaalmeeyo isna la intifaacsado marka insha Allah idinkuna waxaan leeyahay gabdhiyo wiilalba madrasadiina ku waara oo jeclaada inaad diinta ka sii barataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh diinta kamid ah sidoo kale waa maamulaha mustaqbal waxaan u yeeriyaa Xirsi Maxamed oo ah agaasimaha qurba joogta degmada Burtile Xirsi ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم أولا معلمين كسوق القلياشة واردين أرضيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وقت جوال يريي أنا وصو يريني يا وحن جبيني يا صدح غضب
qodobka ugu horeeya waa qodobkii la isugu yimid oo ah xafladan qalinjibinta qur-aanka kariimka ah dufcaddii 28aad sida la sheegay arday 44 arday ah oo u qaybsan wiilal iyo gabdho dugsiga magaciisana waxaan u malaynayaa in la yiri maxamed rasuulullah sorry marka labaad filmaanti waa laga qayliyay filmaanti waa gali jirnay ardaydan ay ka warramaya dadkan idin kama warram filmaanta dad gali jiray anaa kamid ah waxa laga dheefana waa arki doontaan hadii hadda yeelin waxa laga dheefaa damiinimo waxa laga dheefaa qofku inuusan waaridkana maqal uusan maqal macallimiinta iska dhaafa marka adeer waxa kale oo dhan marka weynaataan baa ogaan doontaan daan u soo gudbo ardayda waxaan leeyahay quraanka dhamaysteen dadka idinka maanta u fiican waayo sida wadaadkii hore oo meeshaan iga horeeyay qofkii saddexaad ah uu sheegay waardiinta waxa laga rabaa waa in la baro ardayda waa quraanka maadigu waa wax yar laakiin diinu wax soconaya weeye waa wax qofku intuu nool yahay markuu dhinto anfacaya macallinkiina hadda waxay ka mid tahay waxyaalaha u soconaya arday kasto idin ka mida markii uu hadduu dhintay hadduu nool yahay uu idin leeyahay ajarkaas laakiin maadigu buu qaadanaya fiigiisu iska leeyahay xiina idinkaas kala dhawma ka shaqaysataan tan labaad waa waalidiinta annagu waxaan joognaa magaalada centraalkeeda inta badan kuwa 5 sano jira habeenkii 3 saac wareegaya aaboodna naqaan dhibta waxa weeye waa waalidka macallimiinta maaha macallin maxamed wuxuu sheegay 2 saac inuu arday halkan ka fasaxay kadib uu ku arkay magaalada wax khalday hooyadiis iyo aabiis macallinku 1 saac subaxnimo ama 12kii ilaa 2 saac habeenimo hadduu ardaygii hayay saw ma uusan dhalin oo meel uu seexdo ma uu ahayn xabuu barayay uu dadaalay markuu meeshii ka baxay waalidkiisa inay cishtaan marka reer Burtilo waa waalidka meesha ka ciriiriga ka jiro waxa la yahay waalidka aan ka mid ahay anigu hal la dadaalo waalidiinta ka mid waanay tan saddexaad waxa la yahay dhalooyinka waxa looga qaban karaa waa 3 shay saan u malaynayo waa maamulka waxgaradka iyo dadka iska leh Ilaahay baa arsaaqada bixiya Burtilo waxaan joognay dalcadda raagan in la yiraahdo laga galo dadka halkan jooga hadda filmaanta gala qofna kama joogin baan filayaa dadka waaweyn filmaan xog falimayaan haddana dhala kasto shaal lagu gado waxa loo fahmay ilbaxnimo qofku wuxuu keenayaa dhaladu soo hormareen sukuraasta soo gadan waa liidnimo way waa in la iska daayo dhalooyinkaas sidaas aan looga xilbeeli karaa in qofku eedayo yiraahdo dhalooyin baa magaalada qarribay hadda wax qabad noqon mayso laakiin haddii laga tashto oo dhalooyinkaas sidaan ogsoonahay dhibaato ku yihiin ummadda laga toobashaysto waxba laga qaban karaa waqtigo yar awgiis wax badan in laga hadlay meerad ay tahay munaasabadan waayo waa quraan kariimka ah meelo badan baan ka hadalay xoodana ku jirin tan laakiin sida hadda sharciga islaamku qoran wadaadada ogyihiin ama muslimiintuba inaga ajir baan noogu jira qofna nama soo xoogin waxaan u nimid waa inaanu dhiiril galino oo ardaydu ay ogaadaan waxay dhameeyeen wax dadkoo dhan ku qanacsan yahay oo ayaga iyo waardiintood iyo macallimiintoodii iyo dadkan u imaanayo mujtamaca reer Burtilaaba ay ku faraxsan yihiin maanta inay tahay waxaan Ilaahay uga baryayaa ku soo gabagabeynaya in Ilaahay quraanku anfaco oo ay noqdaan ayaguna dadka sii bara dadka waxa ugu khayr badan qofka quraanka barta oo bara marka waxaan leeyahay idinkuna noqdo macallimiin sii fida oo macallimiintii noo kala ah oo intiinaan inka badan ba soo saara dadkuna ay ka faa'iidaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ahmed Saciid dhammaan xafladda darajadu raba waxa ku fadhiye dadka isugu yimid oo muslimiinta waa salaamaya salaanta islaamkan ku salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta bacdigeed anigu hadda wax kale ka hadlimaye waxaan kaliya oo ku boorinayaa waalidiinta anigu aan ka mid ahay inayan ka farabaxsan taladu ardadaas aynu haatan ka hor ku soo tiriyo tacabeelay sidii ay inaga iyo macallin iyo naftooda iyo teen iyo cid walba u anfici lahaayeen taa kaliya aynu xoojinaan leeyahay waqtiguna waa gaaban yahay wixii hore hadda aan la soo marnana Allah ina ku anfaco inta dambana aan dadaalaan leeyahay macallinka iyo dugsiga iyo kii sii jiro oo jiri doona Allah ka dhigo Allah ardada dambe oo baranaysa Allah ku anfaco sidaa iyo si ka khayr badan baan u rajaynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت معمولياش إسكولة والدينته أرضا أفرتني أفرته لما يصير قرآن كريم كأه إيوه والدينته وحن إلهي وقبر يا أرضا أفرتني أفرته مدرسة عن محمد رسول الله وحن إلهي وقبر يا معلمين تيده
ilmaha iyaga aan ku curanay ilaa hadda ilmihii aanu ku dhalmadaynay qur-aanka noo baray oo maxaafidiinta ka dhigay oo 14 boqolka baray ilaahay inuu ayaga iyo waaridkoodba ka abaalmariyo jannadii firdowsa ahayd macallimiintayada inuu ilaahay geeyo waaridiintii ku soo tabcayna ilaahay iyagana waxaan uga baryayaa jannadii firdowsa ahayd inuu geeyo waxaan ardadan ma ahan ardadii koobaad waa dafcadii 24aad oo ka qali jabisay madarasadan dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambaliyo waa idin la qaybsanayaa farxadda waxaan ahay maamo ka mid ah caruurtaas kulligood waxaan wadaay waarid waxaan dhalay iyo waxaan waayeeyo eedo oo ahayba weeye waalidiintana waxaan leeyahay jasaakallah sidaan u qurxisay madarasadan macallimiintayadana ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo assalaamu calaykum ma badnayd oo xalfad ah weeye iyaga waa salaamaya waxaan salaamayaa waalidiinta waxaan salaamayaa macallimiinta waxaan salaamayaa maamulayaasha dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa ilaahay hadda ilaahay baa iska leh waxaan kaloo u mahadcelinayaa macallin maxamed iyo macallimiintiisa soo saadhay arrimaha laga soo sheekeeyey oo 29ka qaybood oo ka qalin jabiyey dugsigan waxa weeye ilaahay baa waxa weeye mahad iskale iyagana waa u mahadcelinayaa waxa kale oo mahadcelinayaa dhalinyarada maanta quraanka kariimka 410ka baratay oo ka qalin jabisay baan u mahadcelinayaa waxaan u maleynayaa waxa la idin sheegay dhalinyaroy in aydan quraankii barashadiisa ay ka dhamaan aad hadda bilow tihiin baa la idin sheegay culimadii baa idin sheegtay waad maqlayseen hadda iyo hor allaba idin tahay waxbarashadii mid waa midaas mid labaad waxay tahay waalidiintan ka hadlaya anagu haddaan waalidiin nahay waxaanu dhanaanaa ilmuhu markuu dhammaynayo quraanka haddaa dhamayso quraanka mobile baan kuu gadayaa ama waxaasaan kuu samaynayaa baan dhahnaa hadda kuwaa dhameeyay barbaa mobile u diyaarsan yihiin de mobilka muxuu keenayaa marka telefoonadii waxa hadda culimada ka sheekeynaysi way horta waalidiinta dhibaatada ugu weyn oo jirta waalidiinta weeye waalidiintuna ayoo waxba xumaynayn bay macnaha waxa weeye horta arrintiisa la noqotay horta waalidiinta midaas waxa leeyahay laga waantoobo ilmaha sida ay inoo ku anfacayaan islaamkan ay ku anfacayaan ilaahayna ay ku anfacayaan aynu ku dadaalo inaan samayno inaan ku soo celinno inaan ku celcelinno diinta islaamka iyo kitaabka barashadiisa taa waxaan leeyahay waalidiinta weeye waxa weeye sida runta ahna in waxa la isla qabtaa loo baahan yahay oo cid kaliya waxba ma qaban karto meelaha ka hadli lahaana awal baa laga hadlayo ama ha ahaato dhalooyin ama mobile ha ahaato ama dayac magaalada ha ahaato inta awal baa laga hadlay arinta macallin maxaad sheegayaan waa runtiiso ilmahaas waxa weeye 2 saac oo habeenimo baa la soo daayaa ilaa ay salaadina halkaas lagu hayaa iyagoo ay saatayna suuqa wareegayaan anigu arday waxaan ka mid ahay waalidiinta mutadayaca baan ka mid ahay oo laga yaabo inuusan ka warhayn ilmihii waxa weeye markii 2 saac habeenimo la siiday meel jiro haddana waxa weeye dhammaanteen waa inaynu arrinta aad uga digtoonaanaa macallin maxamed iyo macallimiinta waxbaray ajar iyo xasanaad bay helayaan ilaahay xaqiisana waa ka helayaan annaguna waa u ducaynaynaa waa bilaahu tawfiiq in la badiyo ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي ونفسكم بتقوى الله تعالى وداعته يا أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليكم وسلموا تسليما والله ليال ماشان كون برنا قرآن وكلية وحنا نكبر كتاب تفسير النحو أحكام هداية مستفيد في أحكام التجويد تفسير القرآن ما أنت ماشان وحنا بينا كسب بندق وحيابه معنا كان نبري مع محمد مع داير وحنا قال يا دهارة
dahaaradu waxay u kala qaybsantaa 3 arkaan caqliya arkaan ficliya arkaan qowliya arkaan caqliya hadaan galo وهي النية إذا النية شرط جدا أن تكون هنا مع تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام مع وأن تكون هنا في القيام استاج. ثانيا أركان قولية وهي 5 إذا وعشان تكبيرة الإحرام تكبيرة صلاة الوحر أول صلاة أول كذا وقراءة فاتحة والآخر في كل ركعة والباب. كفى من معلما فإن رسول علما في نفراته ومن لم يدغ مرة تعلم الساعة تضرع دل الجهل ودول الحياة ومن فاته تعليم وقت الشابة وإن فاته تعليم وقت الشابة فكبر عليه 4 لوفاته. صدق الله العظيم. جبريل وملك النبي محمد ومعلن كيسية علمك ومصباح جاهلك ومدوياي. mooryaanku wax badan kagama duwana maataaleysiya ilmaan macallin loo helin waa maqal ugaareede minanka iyo dugsigu waa inay madal wadaagaan oo macallinka iyo waalidku ay tala mideeyaan ismogaanshooda ardada maqana iyo jooga. بس ما شاء الله. هل يدي أبو الندى هدراو مثال كيس هدي هو يكجبيان هندسين سجان صاري هذا الكاسيد اسمه هو يا وحلو ليجا لقاه لا الدنيا ده الله هو يا شرفي وحنكوه بيا أما كوه هدية ما به لك رايه هل كاد أديكم مدنتاي وهو يجي شنا ده هو يجي شنا ده هاسكي معانا ربي كوه بيا ولقى هالكاتشوك بالله التوفيق. أرجو كرم جلسي جلسي محمد رسول الله أنه آخر من نشيته سلام بلسته. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله يهفو أمل لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم والرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. يا نور يا محكم تنزيلي لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان التكبير للحافظ وهو صغير إلى عن قرير يحمل فجرا للنور رحوت الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. سلام بعد جيد وحن سوى تشادينيا سؤالية جوابه دينية. su-aasha koobaad waxay ku socotaa dhanka wiilasha waxaad sheegtaa 10 magacyada ilaahay ugu horeeya. أنا وياي magacaygu Cumar Maxamed Maxamuud waxaan salaamayaa marka hore ardayda macallimiinta iyo ka soo qaybgalayaasha culimada diinta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. su-aasha hadda isku daya jawaabteedu waxa weeye yaa allah yaa raxmaan yaa raxiim yaa maalik yaa quduus yaa salaam yaa muumin yaa muhaymin yaa casiis yaa jabbaar. إلهي يا مجيب الدعوات اجعلي يوم سعيدة وكثير البركات واملئ الصدر سراحة وفعين بلبسات وأداء الواجبات
وأداء الواجبات فنادي أن يدعنا بالتوفيق حدي أنا حدي inka iyo bulshada ka soo qayb gashay runtii waxa sharaf weyn ii ah galabta inaan ka soo qayb galo xalfadan madarasadan oo ah madaraso qiimo weyn ugu fadhida shacab weynaha reer Buurtile ee gobolka Nugaal runtii waa markii saddexaad oo ay noogu yeeraan arday intaan la eg ama ka sii badan oo quraanka kariimka baratay axaadiista rasuulka sida ay cadeeyeen waalidiintii iyo bulshadii ka soo qayb gashayna runtii iskuulaadka ay tagaan waxay ugu fadhiyaan qiimo weyn waxaan u mahadcelinaynaa maamulka iyo macallimiinta Maxamed Rasuulullah oo ardaydan aad iyo aad u qurux badan soo saaray oo gabdho iyo wiilalba leh waxaan leenahay dadaalkiina halka ka sii wada waxaana inii abaalgudi doona haddii Allah idmo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisii ayaad fidinaysaan ama dadka baraysaan marka haddii mar ilaahay subxaanahu wa ta'ala raaliina ka noqday cid kale uma baahnidin bulshadana waa inii mahadcelinaysaa madarasadan waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo madarasadan quruxda badan iyo masaajidkan Dr. Dhagacade oo kamida dhakhaatiirta Puntland oo runtii meeshan quruxda badan oo iskugu nimid inoo dhisay asagana waa u mahadcelinaa Dr. Dhagacade waxaan leenahay baarakallah sababtoo ah qofku hadduu ku soo siyaadiyo deegaanka iyo dalkaba wax qurux badan waa in loo mahadceliyo Dr. Dhagacade waa u mahadcelinaynaa waa inay fidiyaan iskuulaad qurux badan bay dhigaan laakiin arki maysid hay'ad wada dugsi quraan baan dhisaynaa marka waxa laga rabaa bulshada Soomaaliyeed ama bulshada reer Puntland meesha ardadooda quraanka ay wax ku dhiganayaan inaan qurxinno kana qayb qaadano sida u heli lahayn diinta Ilaahay aan u noolayn lahayn abaarta iyo fidmada waxayna ku keenayaa waa Ilaahay kalaamkiisa oo laga tago laakiin Ilaahay kalaamkiisa hadaan weynayn lahayn oo sida galabtoo kale halkaan oo kale 44 arday oo reer Buurtile ah aan u weynayn lahayn dugsiyadeena quraanka runtii waxaan aaminsanahay roob khayr qaba oo in la siin lahaa waxaan kaloo codsanayaa inteena halkaan iskaga timid oo ugu horeysa ardadan inaan faatixada marno si Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo siiyo madar caama oo Soomaaliya oo dhan camima abaarta iyo fidmada iyo dilalka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna ka saaro marka faatixada inoo mar faatixa ugu dambeyntiina ardayda iyo waalidiintooda ayaa macallimiinta madrasada Maxamed Rasuulullah waxa ay gudoonsiiyeen abaalmarino kala duwan guulaysaatid jaamac warbaahinta dawladda Puntland Buurtile